wasaaradda arrimaha dibadda dalka Norway ayaa soo saartay fariimo digniino xambaarsan kuwa oo ku wajahan muwaadiniinta Norwejiga ee ku sugan badda Pacifica wadamada ay maraan, halkaas oo shalay ilaa iyo xalay ay ka dhacayeen badgariir ama tsunami oo saameyn ku yeeshay wadamo dhowr ah oo ku yaala badda Pacifica. wasaaradda arrimaha dibadda Norway ayaa sheegtay in aan ilaa iyo hadda lagu soo wargelin cid muwaadiniinta Norwejiga ka mid ah ee ku waxyeelowday arrinta. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Norway, haweeneyda lagu magacaabo Cecilia Ronga, ayaa ku waramayso in ay arrintani tahay xaalad degdeg ah oo la gudboon muwaadiniinta, waxa ayna sheegtay in fariimo degdeg ah ay gaarsiinayaan muwaadiniintooda ku sugan gobolka ay badgariirka ama tsunamiga ka dhacayaan ee ay dhibaatadu ka jirto. waxa ayna intaa ku dartay in fariimaha tooska ah ee ay wasaaradda arrimaha dibadda Norway dirayso ay gaarayaan oo kaliya muwaadiniinta iska diiwaan gelisay reiseregister.no ama sidoo kale abka Reise Klar, kuwa oo fariimo joogto ah ka heli doono wasaaradda arrimaha dibadda meel walba ay ku sugan yihiin. haweeneydan wasaaradda arrimaha dibadda afhayeenka u ah ee Cecilia ayaa intaa ku dartay in aanan ilaa iyo hadda lagu soo wargelin muwaadiniin Norweji ah oo uu dib ama dhaawac ama dhibaato kale ay ka soo gaartay badgariirka ka dhacaya badda Pacifica oo ay dhibaato xoog leh ka soo gaartay wadamada qaar. waxa ayna intaa ku dartay in ay dhici karto in ay jiraan muwaadiniin Norweji ah oo ay waxyeello ka soo gaartay oo aan ilaa iyo hadda lagu soo wargelin. waxayna intaa ku sii dartay in ay xaaladaha mar walba sii kordhayaan oo ay dhaawacyada dhibaatada ka jirto iyo baaxadda burburka uu ka geystay tsunamiga wadamada ku xeeran badda Pacifica ay daqiiqada ka dambayso isa soo tarayso, baaxadeeduna ay aad u sii ballaaranayso. halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.